ma tuugada cryptocurrency sidee lagu gartaa maxaase lagu aqoonsadaa waxaa jira dad badan oo runtii ku qaraabta lacagaha cryptocurrency oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali intaba isugu jira oo runtii dadka ku dhaca iyagoo mashruucan cryptocurrency ama lacagahan cryptocurrency dadka si qaldan u fahansiinaya lacagna uga qaadanaya halkaasna waxa way dadka lacagtoodii ama hantidooda ka dhacaya marka waxyaabaha ay waxa jira ay caan ku yihiin runtii oo lagu garto ayaa jira marka maanta waxaan ka hadli doonaa marka ilaa 10 qodob oo aan kaga hadli doono marka waxyaabaha marka ay caanka ku yihiin dadkan scamiska ah ee tuugada ah ee cryptocurrency mashruuca cryptocurrency waxa weeye dadka ku dhaca iyagoo ka been sheegaya horta qodobka koowaad ee lagu garto waxa kamid ah ballanqaad faa'iido degdeg ah qofka waxay u ballan qaadayaan faa'iido degdeg ah inuu helayo tusaale waxay ku leeyihiin 100% ayaad faa'iideysaa 24 saac gudahood mana jirto meel 24 saac gudahood faa'iido lagu helayo cryptocurrency sidaas uma shaqeyso waxay ku leeyihiin ma luminaysid waliga lacag ma luminaysid crypto mar walba waa khatar waa inaad maskaxda ku haysaa waxa weeye lacagtaada waana lumin kartaa faa'iidana way ku dhali kartaa marka iyadoo hadda dadka waxay u sheegaan inaad damaanad ay ku siinayaan 100% inaad faa'iideyso lacagtaadana aysan khasaarayn taasina waa waxyaabaha lagu garto been abuurka ah ma jirto qof wuxuu ku leeyahay $100 hadaa dhigato waxaan ku siinaynaa $150 baan ku siinaynaa isbuuc gudihii $150 boqolkaagii $50 buu ku dhalaya ma jirto lacag abuurta lacag bay dhalaysaa dee adigu ta aniga ay siinaysa ma adigu ku shaqaysatid marka taasina كوي قضب كمركا وحيابها لو قرته دتك التوكا ده واحد جد بدن التولوي كي توريجان ما موين مساكين تا دتك وحفان سنت أوتجان يرهذا كان العك هنا وحوي فائدة هنا سنت العك أورسنا هدونا وحوي لما هذا كدين سيدا مركا قضب كاس وحيابها أد كخطر سوا أبي كم ده لما رلا وحيابها لو واقع الصراحة كم ده دق يعبسلو قلنايو waxa mashruucdi wuxuudu waa wax degdeg ku salaysan yahay ma jaanis ka halumin hadda gal hadii aad hadda galan waa seegi doontaa fursadan maanta kaliya weeye scammeriska waxyaabaha inta badan ay ku shaqeystaan weeye waxay hadii goor ay xooga saaraan qofka inaysan siin jaanis uu markaa ku fikiri karo ama uu qofku wax ku isku weydiin karo marka waxay rabaan qofka si degdeg inuu wixii u galo si loo dhaco marka hadii goor qodobka labaad waxyaabaha lagu garto waxa kamid ah degdeg iyo cabsi lagu gelinayo hadda jaanis hadda lumiso dib ku soo mari mayso qofku xuslay fursad baa ku dhaafaysa fursadda ka faa'iideyso waa tuug marka inaad hore u gashaa la rabaa qodobka saddexaad lagu garto waxa kamid ah project aan cadayn tusaalahan cryptocurrency way fara badan tahay waxa jira mashaariic iska ilaali coins waa la abuuri karaa cidii rabta coin sameyn karta marka hadiyo coinka aad maal gashanayso waxyaabaha lagu garto waxa kamid ah kuwa tuugada hadiyo goor coinka been abuurka ee la isku dhaco waxa lagu garto waxa kamid ah website la'aan website-kiisu male ama website-kiisu waa mid aad u liita white paper male mashruuc uu ka shaqeynayo oo haba yaraatee oo jirta ma jirto team aan la aqoon macnaha teamka coin kasta waxa jira dad ka dambeeyo waa in dadka ka dambeeya la garanayo waxa ay yihiin background-kooda la faahsan yahay waxyaalaha lagu garto kamid ah team aan la aqoon coin aan la aqoon wax sameeyay wax iskala shirkada iskale mashruuc ku saabsan yahay iska ilaali coin-ka laftigiisu waa waxyaabaha la isku dhaco hadda waxa laga yaabaa coins badan waxa ka saabsan coin maanta jooga 0.1 wuxuu tagay $2 waxa sideeda coin-ka gal dadkii lahaa ee coin-ka abuuray baa bush gareynaya oo lacag gelinaya si dadku ay u soo galaan markii hadhow ay soo galaan ayaa wax weey lagaga baxay kadibna zero ba soo taabanaysa marka khatartaas uu leeyahay coin-ka aad maal gashanaysa markasta waa inuu mashruuciisu cad yahay coin-ka cryptocurrency waa inuu leeyahay white paper mashruuci waa inuu leeyahay oo project uu ka shaqeynayay cid ka dambaysa waa inay caddahay website-kiisu waa inuu waadax yahay waa in marka aad iska hubisaa laakiin hadii uu intaas lahayn waxyaalaha la isku dhacay kamid ah qodobka afraad waxyaalaha lagu garto kamid ah message ku soo dhacayo wax ku soo diraya aqoon message baa lagu soo diraya ama Telegram ha noqoto ama WhatsApp ko kala ha noqoto qof aad garanin baa ku soo qoraya tusaale wuxuu ku leeyahay anigu waxaan ahay expert qof khabiir ah cryptocurrency ama qof khabiir ah waxa weeye waa ku caawinayna ma jirto expert si markaa aan lama filaan ama si random ah ku oranaya waa isaga ka caawinaya ma jirto qofka khabiirka danihiisa ku mashquul lahaa marka qodobkaas waxyaalaha la isku dhacay kamid ah marba hadii aad cryptocurrency ku jirto ka fogow message lagu soo diray inaad furto sababta markaad message-ka furto email-kaagii baa la ogaan karaa password-kaagii baa la ogaan karaa hadii email-kaasi ay cryptocurrency exchange uu kugu samaysan yahay waa laga dhici karaa marka hadii goor message-da waa meelaha la isku dhaco message baa lagu soo diraya xogtaadu dhan baa la wareegaya hadda waxa ka qof kale Facebook waa laga jabsaday email-kiisa waa la soo helay
باسورد ايميلك marka la helay baasoorkii baa la helay marka had iyo goor iska ilaali marna message aadan garanay meesha uu ka imanayo iyo cid uu ka imanayo inaad aska gasho iska ilaali qodobka shan waxa kamid ah waxyaalo lagu garto kuwa tuugada waxa kamid ah private keyga ku weydiinayaan waxay ku weydiinayaan furahaaga khaaska ah ee cryptocurrency waxa jira laba key oo leeyahay public key iyo private public key waxa weeye waa key marka lacagta lagu soo dirayo kale qofka aad u dirayso oo kugu soo dirayo private key waa adaa haysanaya tusaale ahaan central exchange ka dad ka furata account sida Binance oo kale iyaga ku hayna kuwa siin mayaan laakiin decentral exchange ku leeyahay jiro private key ga adigu iyaga gacanta ka saaraya hada private key ga oo kale dii lagu weydiiyo aad siistaan lacagtaadi waa la bixi karaa marka Allah ku soo ururiyo weeye marka private keyga had iyo goor ku weydiinay waxa lagu gartay kamid ah si aan ku caawino ii soo dir qofku weydiinaya iska ilaali waa scam boqolkiiba been buu sheegaya inuu adiga ku dhaco rabaa waxyaabaha qodobka lixaad lagu garto waxa kamid ah fake influencer and screenshot had iyo goor waxa arkaysaa sawiro waxa lagu soo diraya faa'iidadii la sameeyay maanta hebel baa wuxuu qaatay $100 buu dhigtay faa'iidadiisa maanta uu qaatay $500 $1,000 buu la booday dad waxa lagu soo diraya influencer oo caan ah oo la garanayo oo sawirada la soo qaadanayo waxa soo dhan screenshot waa la abuuri karaa sawirada dadka leeyihiin waa la soo qaadan karaa iska ilaali waa fake waa tuugo meelaha la isku dhaco weeye sawiro tusaalahan faa'iido been ah lagu qoray dad caan oo la iska dhigayo screenshot waa la abuuri karaa message waa la abuuri karaa qofka tusaale waxaan waa la abuuri karaa qof maanta $2,000 baa qofka loo diray daqiiqada san waa la abuuri karaa marka had iyo goor waxyaalo lagu gartay kamid ah iyadana iska ilaali oo waxyaalaha ay ku dhaqmaan qodobka toddobaad waxa kamid ah app ama website been abuura hadda tusaale ahaan website been abuura la sameeyay hadda Binance oo taqaanay oo caan ah baa magaciisa waxay laga bedelayaa binance.com soo Binance hadda harfa lagu sii daraya hada qofkii loogadii waa la soo qaadanaya qofkii wuxuu moodayaa Binance-ga saxda ah buu moodayaa oo ku qaldamaya marka halka iska ilaali app-iska been abuurka ana iska ilaali marka app-ka la soo degayso waa in app-kii saxda ah la soo degtaa waxa lagu soo diray URL macnaha ama linki kii saxda ah wax yar kaga duwan kaliya marka had iyo goorna waxyaha la isku dhacay kamid ah app been abuura iyo website been abuura waxyaha la isku dhacay kamid ah qodobka sideed waxyaha lagu garto waxa kamid ah coin aan laga iibsan karin meel kale coin kan kaliya website ka laga iibsan kara meel kale laga helayaa ma jirto haye meel kale laga helayo Soomaa been abuur weeye tuugnima ku jirta waa in coin ka meel kale duwan ay ka heli kara oo ka iibsan kara laakiin hal website haduu ku xiran yahay macnaheedu wax weeye waa coin been abuur ah oo la rabo lacag lagu dhaco coin aan meel kale laga heli karin iska ilaali aan meel kale laga iibsan karin iskana iibin karin iska ilaali waxa dhici karta coin waxay u furayaan kaliya in la iibsan karo tusaale way iibsan kartaa iskama iibin kartid markaad iibsato $100 saahan geliso oo aad coin ku soo noqdo numberskiyo beena ku qormaya mana iska iibin karto waa lacag beena waa numbers beena lacagtaadina waa laga qaat marka had iyo goorna iska ilaali coin aan laga iibsan karin meel kale qodobka sagaalaad lagu qorto waxa kamid ah lacag laga codsado fee si faa'iido aad u gaarto lacag baa laga codsanay waxa leeyahay tusaalahan coin-ka inta soo lacag gasho si aad u faa'iido waka iyadana iska ilaali drop shipping waxa la sameeynaa waxa la yiraahdo token beenan bixina token coins baan bixinayna free ah si aad coins-ka u hesho waa inaad lacag $100 bixisaa waxyaabo noocaas iska ilaali bixi $100 si aad u hesho faa'iidadaada lacag laguma sii daayo lacag kale waliga maskaxda ku hay qodobka tobnaad ee waxyaabaha been lagu qorto kamid ah community been ah dadka had iyo goor taageersan mashruucan ama wax way dad kale u maalinaya oo iska ilaaliyagana comments fake ah dad ah ma sha Allah lacagti waa ka helay hadda ii soo direen waxa qof lacag la siinay waxa leeyahay waxa tiraahdaa noo soo duu waxa tiraahdaa ha taasoo lacag ay direen lacag baan maal gashaday lacagti waa ka helay aad iyo aad buu mahaysan been abuur weeye ما تشيلوا قف يدل عقات أنت مرسى أوفر استورنا يفائدة عن أي لواكن وابهن أبور وضد لجهد الشين والعقل الصيني كومنت فيك كوح تلاجرام وأدمك كلي وهلا برشاء آمسن وحصل وحليس وهي هلا يسكون عوية مركز تمنك قضبي وحيابها دتك توجد كريبت كارنسي أي دتك كودعان وحنا جينا إن قفكست وفهمي ساعد إسكجد دفاعي كرتو أما إسكجد إلى اللي صورته محاسبة هنا سامرك سيد وافهمني قابك لو قرتو توجد أساس كجيل على كرتا سمير ريسيرش أنت هذا كوين كعلى مال قشان أما واحد أنت هذا الجلين علم باريس كوسامي بارتان كوسامي حكودك دقين حدك دقين مركا العجل نيسو صار كريبت كان ما كوين يبسن يسو العجير بالجلية حد والأركان بقى العكر الجلية ترتيب
استعمال هذه الجور اكسشينجيدا وين اللي سلقرنايو هذا دونيسا كريبتو اكسشينجيدا وين سيدا باينانسي كوين بيس ان كوين ماركت كو معناها لسلا garanaya exchange-yada caanka ama satar ha noqon center ha noqdaan ee caanka ee lasla garanayo lacagtaada gasho inna ku aaminin ma jirto lacag keen anaa kugu shaqeynayo no ma jirto lacagtaada adaa rabaa inaad ku shaqeysato mar hadiyo goor waxyaabaha isaga ilaalin kartaan waa ka sidoo kale waxay isaga ilaalin wax ka mid ah email-kaaga iyo xogtaada cidna ha u share gareyn link-i lagu soo diray ha gelin waxa kale oo aad samaysaa password adag ku xiro Google Authenticator-ka ku xiro oo 6 number oo security-ga ah oo taleefankaaga kugu jiraya ku xiro security-gana aad iskaga adkay qof wax arkaysa password ku dhiganaya 1234 waa lagu braaweynaya 1234 soo heli kara password adag baa la rabaa number isugu jira xaraf isugu jira xaraf weyn isugu jira xarfahan sida xidig iyo afirgeesi isugu jira taasna marka wada marka maskaxda waxa ku haysa disclaimer waxyaabaha had iyo goor muhiimka waxa weeye maadaama ay khatar badan tahay macluumaadka marka had iyo goor mar walba aad baarayso macluumaadka lagu siinay kaliya wax u qaadatay inuu wacyi gelin yahay adiguna marka aqoontaada gaarkaana had iyo goor raadi maadaama waxana ay aad u khatar badan tahay qof kasta wuxuu ku yiraahdaa iska aamin hadii ilaahay yiraahdo waxaan keenina halka inaad mawduuca wax fiican ka fahantay hadii aad wuxuu ka faa'iiday fadlan YouTube ka subscribe noo saar like noo saar si muuqaal dad badan ugu gaaro oo uga faa'iideystaan aad baa u mahadsan tahay channel sidoo kale playlist-iga project la yiraahdo crypto currency waa tagi kartaa muuqaal kale ayagana ka helayso ka sii daawanaysa oo runtii wax badan kugu siyaadinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.